subax wanaagsan daawadayaal meel ka soo joogtaan halkan waa channelkeena YouTube-ka shabakada wararka calanka news u diyaar garooba wararkeena subaxnimo waa subaxnimo Arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha December waa bisha Agoosto ee 2020 saaxiibayaal saakin wararkeena waxa kamid ah dagaal culus oo u dhaxeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka ayaa saaka ka soconaya deegaan 20 kilomitir jira Bacadweyn goorkii ugu dambeeyay dagaalada halkaas ka soconaya dib u dhac ku yimid wajiga saddexaad shirka Dhuusamareeb oo laga digayo Villa Soomaaliya lagu cadaadinayo magacaabista wasiirka koowaad xukuumadda madaxweynaha Galmudug ayaa Turkiga wuxuu kulan kula qaatay Cabdikariim Xuseen guuled xoga ayaan kaga haynay waxyaabaha ay ka wada hadleen xildhibaanada golaha shacabka kulan yeelan doonaan Ilhaan Cumar mar kale iyo guul taariikhi ah ka gaartay doorashada golaha wakiilada qodobadaasi kuwa kale ayaa qayb ka noqon doona saaxiibayaal iyo wararkii ugu dambeeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ka mid noqon saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gabaleelka taabas ay kugu soo dhacaan wararka iyo macluumaadada gaarka aan ku hormar wararkii ugu dambeeyay ee mudug warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Shirmeelo oo yiraahdo 20 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Bacadweyn ee gobolkaas mudug halkaas oo ku dagaalamaya dadka deegaanka xubno kamid ah al-shabaab gudoomiyaha deegaanka Bacadweyn Axmed Daahir Macalin ayaa sheegay in dagaalka ay ugu dambeyn ay ku guuleysan kadib markii al-shabaab ay afduubteen qaar kamid ah dadka deegaanka oo ku jiro wadaad caana lagu magacaabo Sheekh Ali isla markaana dadka deegaanka ay ka caroodeen talaabada ay qaadeen gudoomiyaha deegaanka Bacadweyn Axmed Macalin waxa uu sheegay dagaalka kadib al-shabaab ay afduubteen wadaadkaas sidoo kale dad badan halkaas ay ku toogteen dadka deegaanka qaarkood dhankooda waxay noo sheegeen in ilaa 4 ruux oo ku jiro wadaad caan ah oo la dilay midna la afduubtay halkaas lagu dilay sidoo kale la arkay meedadka ururka al-shabaab ku dhawdo dagaalkaasi khasaaruhu ka soo gaaray gudoomiyaha deegaanka Bacadweyn Axmed Daahir Macalin waxa uu sheegay in maamulka uu baaritaano ku sameeyo dal khasaaraha rasmiga ee dagaalkii saaka ka dhacay deegaankaasi dhanka kale magaalada Bacadweyn waxa ku sugan ciidamo badan oo al-shabaab ay saraakiisha Galmudug waxa la sheegayaa in mar walba dagaaladu ay sii socon karaan qodobada kale waxa qaybka dib u dhac ku yimaada wajiga saddexaad ee Dhuusamareeb oo laga digayo Villa Soomaaliya waxa lagu cadaadinayaa shirka cabsi weyn ayaa laga muujinay dib u dhac ku yimaada waqtiga lagu ballamay shirka Dhuusamareeb maadaama ilaa hadda aysan muuqan ee fafaalo muujinaya in shirkaas uu qabsamo waqtigii loogu talagalay cabsida ugu weyn ee shirka ayaa keenaysa kadib markii madaxweynaha Galmudug oo martigeliyaha shirkaas uu ku sugan yahay magaalada la yiraahdo Ankara ee wadankaasi Turkiga si la mid ah madaxweynaha Puntland shalay waxa uu gaaray Djibouti halka xubnihii wakiilada ay loo xil saaray kulamada doorashooyinkan ilaa hadda aysan jirin kulamo toos ay yeesheen cabsidaas ayay dad badan ku micneeyeen inay keeni karto dib u dhac iyo waliba xukuumadda aan wali la magacaabin gaar ahaan magacaabista ra'iisul wasaaraha wali maqnaanshaha xukuumadda ayaa ah cabsida ugu weyn ee hadda keeni karta in shirkaas dib u dhaco maxaa dhici kara hadduu shirka uu baaqdo waa su'aalo dad badan isweydiinayay cadaadiska dawladda shirka baaqashiisa ayaa loo sababeynayaa 3 arin waa mid koowaad maqnaanshaha xukuumadda oo mar walba waajib ay tahay in shirkaas ay goobjoog ka noqoto abaabulkeeda maadaama Dhuusamareeb 1 iyo 2 abaabulku lahaa Xasan Cali Qaare ee xukuumaddiisa oo meesha laga saaray arinta labaad ayaa ah in madaxweynaha Soomaaliya ka caajidayo shirkaas isagoo ka doorbidaya in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dawladda cadaadiska saddexaad ayaa noqon kara doorka beesha caalamka iyo cadaadiska dawladda ay ku hayso madaxda maamul goboleedyada oo qudhada si weyn kaga beeydiisan culayska kale ee ugu weyn ayaa waxa ay tahay in dawladda Soomaaliya qudheedu ay wajahayso cadaadis beesha caalamka maadaama dawladda hadda lagu cadaadinayo magacaabista wasiirka koowaad ee xukuumadda arrimahan ayaa ku soo biiraya xilli ay jiraan guddiyo loo xil saaray dhanka doorashada oo dawladda Soomaaliya maamul goboleedyada inay kulamo gaargaar ah yeeshaan dhammaan guddiyadaas ayaa u muuqda kuwa meesha ka sii baxaya maadaama labada dhinac ee guddiyada Puntland iyo Jubaland ay diideen inay Muqdisho yimaadaan kana qayb galaan kulanka dhammaan cadaadiskaas ayaa kuwa ku sii kordhaya dawladda madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo haddaba maxaa dhici kara haddii shirkaas uu baaqdo waxaan su'aashan hordhigay Xasan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaan sharaxayaa bil cawaaqibka dawladdu ay la kulmi karto haddii ay dhacdo in uu baaqdo shirkan waxa weeye hadda waa isagoo aan la carqaladeyn baa iska carqaladeysan yahay sababtoo ah madaxweynaha ayaa muujada waddanka dhan isaga maamuli karo kuwa kan hadda Burubiya ku meel gaarka uu magacaabay miyuu diraya waxyaalaha la yaab kale waxa weeye war haddii 15 casho aad ra'iisul wasaare la rabay
waxay ahayd in dowlad ra-iisul wasaare la magacaabo inkastoo aan bilib garaysanahay shirkaas in dib loo dhiga maaha inaan laga gaarsiin karin marka waxaa weeye waxyaalaha aan ka hadlayo qalalaasaha jiro oo aan sharciga ahayn oo sharci darrada ah weeye waxyaalaha aan ka hadlayo way haddii shirkaas marka uu qabsoomi waayo maxay noqon kartaa haddaan sawir guud ka bixin cadaadiska marka dowladdu ay kala kulmi karto beesha caalamka la ogahay in si adag kaga hadashay eryadii kheyra iyo xukuumaddiisaba wallahi waxa weeye horta sideeda beesha caalamku waaba cadaysatay maysan diidin maysan ka horey bay uga hadashay waxay tiri shirkaas in la xoojiyo baan anagu doonaynaa iyadoo mawjada iyadoo ay saas leedahay ra-iisul wasaaraha mawjada sharci darrada lagu riday oo isaga laftigiisa sharci darrada lagu ridaan la rabaa because waxa weeye waxaa loo baahanyaa marka ra-iisul wasaaraha la ridayo ama mawjada mooshin waa inuu dhacaa laga doodaa macnaha in la yidhaaho inta dad la isugu yeero anugu baarlamaanka inta la isugu yeero la yidhaha warka ninkaasaan ridaynaa haddee waxaasi taasi sharciba ma ahay waxaa sharci darraa xataa ahayd in qof kale loo magacaabo oo inta isagoo mawjada haduula xataa la riday in la yidhaaho xil wareejintii ha sameeyo ra-iisul wasaaruhu oo intaas uu sii hayo isagu ra-iisul wasaare kale lasoo magacaabo sharcigu sidaas wey laakiin sidii nin isagu wadanka dhacay ama mawjada in la yidhaaha ma soo geli kartid xafiiska aniga taas sharci uma arko qofku dambi hadduu leeyahay waxa weeye markuu xilka wareejiyo kabacdi ayaa la dabageli karaa looran karaa intaasoo qodob ayuu dambi ku galay intaasuu dambi ku galay waxaas mawjeedaa lagu haystaa waa sharciya in qofka mawjeedaa lala xisaabtamo waxaa aada loo hadalhaya oo laga baqaya oo guux badan u jiraa in baarlamaanku fadhi ay yeeshaan oo buruska lagu dhufto ama ay muddo kordhin ay samaystaan si loo siiyo fursad xukuumadda cusub taa haddii ay dhacdo maxaa dhici kara doorka beesha caalamku muxuu noqon karaa ay kula tahay wallahi waxa weeye beesha caalamku hataa waxyaalo badan baa dhici karo horta waxa weeye qalalaasaha wadanka aan ka hadlayo bointigaas wey bointi kale maaha qalalaasaa imaan karo dhac baa imaan karo lisdil baa imaan karo in dawladda iyadii intaas lagu soo dhimanayo oo beesha caalamku kusoo dhimanaysa ay burburto baa dhici karto waxaa dhici karto mawjeeda in aan mawjeeda oo baarlamaanka laftigiisu taaskan inay ka digtan yihiin baa anugu bilifgaraysanahay oo iyadoo aan mawjeeda ummadda soomaaliyeed hadday mawjeeda ilaa dadku waxaa weye waxay leeyihiin dowlad goboleedyay leeyihiin haddii ay kureeyay dad mucaarad ay leeyihiin dad muxaafid ay leeyihiin intaasoo dhan oo wada isku timaado waa lagu saa'idin karaa laakiin baarlamaanku hadday codka fiisada iska isticmaalaan oo ay yidhaahaan annagu waxaan ku darsanay hadda taasi waxay noqonaysaa burbur iyo haddii ay kureeya waxyaalaha burburka keeni kara wey oo aan leeyahay qalalaasu ku jira wadankuna waxa weeye maanta ma degana mana gaarin heerka uu gaaray maantay uu gaarsiisan yahay haddii taas ay gaarto hadday taasi timaado waagaa qodobadana kale waxaa xasan sahal xasan falanqeeye arrimaha siyaasadda soomaaliya kaasi ah haddaba qodobadana kale wararka ka haraya daawada la eegi doona ilhaan cumar guul lama filaan ayay ka gaartay kursiga doorashada ee xisbigeeda ilhaan ayaana guushaani ka dhigan tahay in mar kale siyaasadeeda ay sii wada doonto warbixinta ilhaan ayaa si kooban usoo qaadan doona ilhaan cumar oo kasoo jeeda jaaliyada soomaaliyeed ee dalkaasi mareykanka asal ahaan kasoo jeeda wadanka soomaaliya ayaa ku guuleystay doorashada xisbiga dhexe waa xisbiga dhexdiisa ay ka gashay taas oo lagu tartamayay matalaada kursiga xildhibaannimo ee aqalka wakiilada degmo kamid ah gobolka Minnesota waxay loodan adag ay kula jirtay siyaasiga lagu magacaabo Antonio Melt Maax ninkirado iyo saddex musharax oo kale kuwaas oo dhammaantoodba u xaqal taagayay in ay meesha ka saaran ilhaan dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay ayay ilhaan la kulantay cadaadis xoogan ee dhaleeceen oo inta badan looga soo horjeeday baraha bulshada laakiin taageerayaasha xisbiga ayaa markale ilhaan u xushay inay sii difaacato kursigeeda degmada shanaad ee Minnesota marka la gaadho doorashada Mareykanka ee dhacaysa bisha November ilhaan guusheeda kadib ayay qoraal ku qortay bagiira Twitterka gudaha Minnesota markasta waxaan ognahay in dadka is-abaabula ay ka adkaanayaan lacagta la abaabulay caawana waa dhaqdhaqaaqeena guul kaliya ma aan soo hoyin ee waxaan kasbanay maamul isbedel keeni kara ayadoo ay jiraan dadaalo badan oo gobolka
ka baxsan ay ugu jireen in guuldarro nagu dhacdo mar kale ayaan taariikh dhignay annagoo oo weliba isku duuban taageerayaashooda sii kordhaan ayay tiri Ilhaan Cumar oo qoraalkani ku daabacday barteeda Twitterka. Ilhaan si weyn ayay kaga falcelisay natiijadii soo baxday. Antonio Melt oo ah ninka sida weyn u xusul duubayay in kursiga Ilhaan ka farmaroojiyo ayaa la sheegay inuu isticmaalayay lacagihii ugu badnaa ee kursigaas uu doonayo inuu ku soo baxo. Lacaga badan oo aruursada ololihiisa doorashada awgeeda ayaa ninkan loo sadaalinayay inuu Ilhaan ka guuleysan doono meeshanu ka saari doono. Waxa uu iibsaday inta badan xayeysiinta warbaahinta gobolka Minnesota taasoo cabsi gelisay taageerayaasha Ilhaan Cumar. Musharaxiinta kale ayaanan helin codad intaas u sii badan marka loo eego codadka ay heleen Ilhaan iyo shakhsiga kale ee la tartamaya Antonio. 4 sano ee la soo dhaafay waxa Ilhaan si weyn kaga dhex muuqatay siyaasadda Mareykanka ayadoo codkeedana ku muujinaysa sida ay kaga soo horjeedo siyaasadda maamulka madaxweyne Donald Trump. Waxay leedahay haweeney si weyn kaga dhex muuqatay golaha aqalka sare ee ka tirsaneed waana gabar aslahan ka soo jeeda Soomaaliya laakiin haysta dhalashada Mareykanka. waxay noqotay gabadhii ugu horeysay Soomaali ka soo jeeda oo heerkan ka gaadha siyaasadda Mareykanka. Sidoo kale waxay ka mid tahay haweenka muslimaadka ah oo markii ugu horeeyay ku biiraya aqalka Koongareeska Mareykanka. Intaas oo taariikh ah waxa dhigaysa gabadhaas lahan ka soo jeeda Soomaaliya ee Ilhaan Cumar. Ilhaan ayaa kursigeeda difaacanaysa ayaa guul weyn ka soo hoysay codadkii ugu badnaa ee ilaa hadda la tiri kuwaas ay ku soo baxday. Sidaas waxa ay ku noqonaysaa musharaxa xisbiga dimuqraadiga doorashada kaga qayb gali doonta bisha November ee sanadkan dhamaadkiisa. waxa ay doorashadaas ay ku wajihi doontaa musharax ka soo jeeda dhanka xisbiga jamhuuriga. Xisbiga dimuqraadiga ayaan wax walwal ah ka qabin natiijada doorashada November marka loo eego Ilhaan iyo guulaha ay gaartay. 40 sano ugu dambeeyay ayuu xisbigani ku xooganaa gobolka taasoo Ilhaan qudheeda u saalaysa in guulaha ay sii wadato. waaga gorbixintan ugu dambeysana madaxweynaha Galmudug ayaa kulan la qaatay Cabdikariin Xuseen Guuleed iyagoo ka wada hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed. Madaxweyne Qoorqoor iyo waliba Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa dalkaasi Turkiga kulan ku wada qaatay iyagoo ka wada arrinsan arrimaha doorashooyinka siyaasadda gobolka. kulankan labada mas'uul ayaa waxay kaga wada hadleen xaaladda siyaasadda dalka gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee madaxweynihii hore ee Galmudug Qoorqoor oo la wadaagay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo Galmudug soo maray. waxaan magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga kulan kula qaatay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. waxaan ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka arrimaha hortabinta leh. sidoo kale madaxweyne Qoorqoor waxa uu bogaadiyay howlaha wanaagsan ee muddadii koobnaa uu ka qabtay waxaan ku dhiirigeliyay inuu sii laba jibaar ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed oo qoraalkan ku soo daabacay bartiisa Twitterka. sidoo kale Guuleed waxa uu sheegay in Galmudug hadda ay udub dhaxaad u tahay siyaasadda kala guurka ee Soomaaliya isla markaana isha lagu hayo Dhuusamareeb 3. ugu dambeyn madaxweynihii hore Galmudug Master Guuleed iyo Qoorqoor ayaa isla meel dhigay in shirka Dhuusamareeb waqtigiisa uu ku qabsamo lagana taxadiro wax walba oo dib u dhac u keeni kara. madaxweynaha Galmudug ayaa la filayaa in dib ugu soo laabto maanta ama beriba si 15 bishan Dhuusamareeb kaga qabsamo shirka. warbixinada ayaa ugu waaweyn daawadayaal wararkeenina saaka waa nagay taasi nabadgeliyo.